waxaa heerka ugu dambeeyey maraya tartanka degmooyinka gobolka banaadir kaasoo ay taabagelinayaan maamulka gobolka banaadir waxaan iminka ku sugnay garoonka caalamiga Engineer Riso Stadium ka oo ay maanta ku almiinteynayaan ama almiintada ugu dambeysay ku sameynayaan ciyaartoyda xulka degmada Cabdicasiis kuwa oo final ka soo tigsaday wajihi doonana xulka Shangaani bismillaah waa u diyaar garoon ciyaarta final aan ciyaaran dhigan walaalaheen Shangaani diyaar garowgeena waa 100% saata aragto waxaan ku jirnaa diyaar garowga aan isku diyaarinay ciyaarta finaalaha waxaan rajeynayaa insha Allah in dhigan walaalaheen Shangaani aan la ciyaar doono kubad qurux badan guusha dhankeena ahaa doonto insha Allah aad iyo aad diyaar hadafkeena wuxuu ahaa in yani degmadan aan gaarsiino meel yani in tigsan sanadahan iyo sanadii u dambeeyaba alxamdulillah way noo suurtagashay waxaan noo suurtagashay in aan gaarno heerka ugu quruxda badnaa heerkii gabagabada waan rajeynaa insha Allah in koobkani aan nugula soo gunaanado waan ku rajeey jirnay hadafteena waa kamid ahayd aad iyo aad taageerayaasheena qiimaha iyo qayaale meel walba ay joogaan dal iyo dibadba ugu horreyn waa salaamayaa meel walba ay joogaan waan ku faraxsanahay taageerada iyo mar walba garab saageena la garab joogeen waan ugu mahadcelinaynaa insha Allah laantood heerkan lama soo gaarin ilaahay ka sugo ayaga yani garbeeni ahay waan rajeynaa insha Allah in geemka soo socdaan ay garbeen ahaan doonaan waxaan rajeynaa insha Allah in koobkan ayaga ku dabaaldegi doonaan insha Allah bismillaah aad iyo aad ugu dhawahay Raja Sports dhiirigelinta mar walba u taageertiin baahda Soomaaliyeed ee sportska aad iyo aad aniga mahadcelinaa mideeda kale waxaan ahay macalinka labaad degmada Cabdicasiis Xasan Cumar Daawud aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan soo gaarno ciyaar dhamaadka finaalka mideeda kale waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay anagoo maanta laba qofood macallimiin aad u da'yar waxaan ilmo da'yarna aan sidoo aan ku soo gaarnay finaalka degmooyinka oo 18 degmood oo lagu martiqaaday oo groupka 5 ka soo baxnay haddana ay taaganahay final aniga Shangaani waxaan aad iyo aad u rajeynayaa haduu Ilaahay karaan laho in bitinka aan meesha ku soo istaagnay in aan ku sii dhameystirtoono haduu Ilaahay karaan koobkan aan keeno degmada Cabdicasiis oo looga bartay in ay ku harto wareegyada 16 ee soo dhaafin mar walba groubyada ay ku harto oo haddana ay tahay koox oo semi finalka taagan awaarta baan haysan aan ka baxnay baahida kaliya noo dhiman ay tahay in ay gaarsiino degmada Cabdicasiis championka sanadkan in ay difaacato in badan garoonkeeda oo martiqaad ay ka tahay bas calaamasaar kaliya oo tahay ayadana mar loo cadaymsaareenin baahida badan ay ka taagan tahay in aan ka bixino nasiibkeena Ilaahay uu noo fududeey waana imaana final horta aad iyo aad ugu faraxsanahay in kastoo hadda oo koobka Shangaani qaadana uu yahay xaafadeena diriska oo koowaad ah oo dadka la isku tiriyay diris wadeenka jiiraanku iigu soo dhawaah iyo Cabdicasiis haday qaadana ayadana Shangaani iska xumaan doona waxa darnaa lahayd koobka meesha yaal in safar badan u gashid ama gaari dheer u raacid ay meel ka fog in la geeyo laakiin hadda waxa dareensanahay in oo labada meel iska mid ah tahay laakiin wax weyn ma in kastoo ay soo badaysa anigana waa soo badeen barbardhac waxay ay sameeyay ayada hadii la isbarbar dhigo labada kooxood Cabdicasiis boqolka maxaad imbitina ku soconaa iyada clean sheet waa laga jibiyay maxay ahayd imbitin waa laga jibiyay saa ogtihiin maxay ahayd guulo waa soo goordar waa soo gaartay goolna way soo gaartay dhalkeeda ay jeeday furitaan ayada waa ka soo badan difaacashada ay sheegaysid waxyaalahaasna kubadda cagta seed waa lucky nasiib meesha inuu ku keeno lucky nasiibkeena anaga wadan 100% aan isleenahay guusha aniga xageena soo ahaan doonta bismillaahir rahmaanir rahiim waa dareemi kartaa koox final imaaday in isku imaan si fudud waxa soo qabanay shaqadeed oo adag waqtiyo badan kadib Cabdicasiis meeshii ma taagan tahay waxa ugu dambeysay sodomeedii sida aan filayo maanta waxa taaganahay heerka ugu dambeeyay tartanka diyaar garowgeena waa mid aad iyo aad weyn waxaan ku faraxsanahay maadaama ay maanta soo booqdeen TV-ga Raja Cable oo ah TV sporti mar walbana ka shaqeeya sportiga dalka sidoo kormar lahay waa dareemi kartaa koox final imaaday si fudud kuma imaan kulli dhigeena degmada Cabdi Shangaani dariskeena waa koox adag Shangaani sida aan anaga ognahay Cabdicasiisna sidoo kale way diyaarsiin kulli marka kulan final dhilayo qof walba wuxuu jecel yahay guush in xaqiisa noqoto anaga Cabdicasiis ka ahaan iyo gudoomiyaha sportiga insha Allah kooxdan way diyaarsatay sanadkan koobka waxa lagu dhilaa waa degmada Cabdicasiis insha Allah ciidan oo heli doonto koobkaas insha Allah Cabdicasiis ma dhaafi doonto waa dareemi kartaa marka shaqo waqti badan la soo qabto shaqadii la soo qabto waa lagu mir dhalan noqonaysaa degmada Cabdicasiis ciyaartoy dhilayso waa ciyaartoy ka soo qayb gashay tartanka youthka ee iskoolaadka iskool 12 Janaayo ani macallin u ahay iskool darbiyo ani macallin ku ahay tartamada soo dheelin ciyaartoydu wixii yaqaan garoonkan sida lagu dheelo wixii kamid yihiin ciyaartoyda national teamka oo hadda waa la meetayso wili inkastoo san qarankiisa bixin laakiin ciyaartoyda ugu fiican oo hadda tababartay kamid yihiin alxamdulillah marka waa dareemi kartaa koox intaas oo dadaal isku haysato ee garoonkan shaqo fiican taqaano hadafka ay leedahay waan aragtay kulamada degmada Cabdicasiis dhashay waxay kooxaha ugu badan ugu qurxan marban guusha loo saadaalay
waxaa leeyahay taageerayaasha degmada Cabdicasiis la'aantiina waxma noqon lahayn dhiirigelintiina taageeradiina ducadiina aan meesha ku taaganaan insha Allah waxaa leeyahay kulanka finaalka taageerada degmada Cabdicasiis dal iyo dibadda meesha jiraan haddii noqoto mid taageero oo dhiirigelina iyo mid dhaqaalaha waana la garab taagantii waa ognahay soo laba jibaala insha Allah kooxdiina garoonka soo buuxu dhaafiya garoonkiina iyo degmadiina waxaa jeclaan lahayn inaan sanadkani ay wacdara samayso oo garoonka soo buuxu dhaafisaan kooxda dhiirigelisaan insha Allah anagana waxaa samayn doonaa waad ka farxi doonaa koobkan idin keeno doona insha Allah Rajo Cable TV, the Cable Digital TV in Somalia. 445 kanaal oo HD ah. haddaba ka faa'iideyso qiimo dhimista $25 iyo bisha koobaad oo free ah. naga soo wac lambarka gaaban 344 kaas oo shaashada ku qoran. Rajo Cable TV. Rajo Sports oo ku dhawaay magacayga Cali Muxudiin Xasan. ilaa maanta iskala oo heerkan soo gaarsiiyay waxaan leeyahay degmada Shingani oo heer finaal isla joogno waxaan rajeynayaa inaan ka qaado doono koobka insha Allah isku day badan waa jira in aan ka guuleysan karno degmada Shingani isku dayaas oo ujeeda tababar aad iyo aad u culus aan qaadanay tababarka ugu dambeeyay waxaan Shingani waa degmo anaguna degmaan ahnay waxaan rajeynayaa inaan ka qaado doono koobka insha Allah waxa ugu baaqaya taageeraha si ay noo garab istaagaan jireen inay noo garab istaagaan kulanka ugu dambeeyana ee garoonka soo camiran kuwa oo nalaga socon siyaasada insha Allah si ay noo la socon jireen aan noo la socdaan waxaan u ballan qaadaynaa inaan koobka qaadi doono insha Allah iyadoo aan weli la shaacin waqtiga rasmiga ah ee la ciyaari doono tartankan degmooyinka gobolka Banaadir oo ay final ka soo tigsadeen labada xul degmo ee kala ah Cabdicasiis iyo Shingani ayaa si wali waxa socda dadaalada ay ugu jiraan labada xul ee degmo kuwa oo ka kala socda Shingani iyo Cabdicasiis inay isku diyaariyaan tartankan xiisaha badan ee degmooyinka gobolka Banaadir macallimiinta iyo ciyartoyda badankood waa sida ay rajada ku qabaan in xulka Cabdicasiis ay keenaan koobkan ay kaga guuleysan dhigooda Shingani. Ashraf Abdulbaasid Macallim Xasan, Raja Sports.